maanta saxiblaad baa idin salaamay maanta tutorial muhiim barnaamijka inaad kula shargareeyo waxaan rabaa inaad Trust Wallet marna lacag ku shubo marna lafteeda aan lacag ka soo saaro mar Binance baa tagaya oo Trust Wallet baa lacag ku diraya marna lafteeda Trust Wallet baa lacag ka soo diraya exchange caadiga sida Binance waan isticmaal doona marka tutorialka muhiim weeye waayo saxibaad dhalinyarada badan marka email ay soo diro oo lacag iska dhumiyo marka waliba Trust Wallet aad joogtid way fududahay in lacagta ka dhunto qaar waxa jirta saxibaad raba inay ka soo guraan Trust Wallet oo exchange u guura mar walba siraan ka sameeyo haddana lacagta iska dhumiya waayo network iska network marka la joogo saaxib Binance iyo way fududahay network dooranaysa laakiin marka Trust Wallet la joogo network iyo waxa koonka uu isla socdaa marka USDC laga inaan 5 USDC ahaysid USDC baabahelisa USDC waxa ma taqaanaa Ethereum kale marka hadii aad u fiirsan ama aad aqoon hor u lahayn lacagta way ka dhawan doontaa basically dhammaan soo celin kara marka dhalinyarada email ay soo diraan waxaan kama qabaa marka waxa la tutorialka maanta inaan ku soo dhameeyo aan fahantid mar dambe inaysan lacag ka dhawin hadii aad ina sakad ka soo guurtid Binance iyo Kraken iyo ma taqaanaa Maxo kale aad Trust Wallet u guurtid qaabka hantada meesha ugu shuban baa muuqaalka kula shaqeeya ama hadii aad Trust Wallet laftiga aad inaad guur oo sakad u guurtid qaabka ugu soo guulay oo lacagta si safe platformka aad rabta u keysan bara muuqaal sax maanta aad kula shaqeeyo intaan muuqaalka sax u gudbin tan waa kaarimindeena in ka badan 25 koorto ku jirto oo dhammaan xirfadaha online loo shaqeystaa ka bilaabana sax bal cryptocurrency tabaan ugu macallanka ah forex oo nin kale macallanka yarunta qabiira dropshipping ba ku jira Shopify qaabka loo sameeyo video editing coding ilaa dad course ka hayna web development iyo ilaa saddex course sax oo no coding sida WordPress ka loo sameeyo course baan ka hayna barasho computer ka albaaba e-commerce graphic design blogging Python ba ku jira baadhay wasada kan booqo agala bashirada domainka numberkana wala xiriir kara todobaatan jirta waa office-kana saxib Soomaaliya waxa saxib tutorial kelma bilaabna laba qeyd baan u qaybin doonaa marna waxa Trust Wallet lacag ku shubaynaa marna ayada ka soo saartana marka hore waxa inaad Trust Wallet aan lacagta ku shubno bayday marka waxa imaanaysa Trust Wallet ka baad imaanaysa maadaama arin asaga lacagta aan ku soo shubno marka aad saxib meesha home-ta baa imaanaysa marka home-ta maad receive baa la hadda soo jeedama 72 ugu jirto xisaabta la socdo marka waxa inaad receive dhaho oo ayada lacag ku soo shubto Trust Wallet kayga marka waxaan doonaysaa meesha qorantahay receive baa doonaysaa marka hore waxaan qortaa marka koonka aad rabtid inaad lacagta ku soo shubtid hadda nin yar aan email ugu jawaabay koonku lacagta ku soo shubay USDC koonku lacagta ku shubtay nooxad XRP lacagta wiliga helimaysid waayo waa laba koon oo kala duwan marka inaad iska ilaalisid marka hadda waxaan dooranayaa USDC baan dooranayaa mise u jeedaa masaxbiyaal adiga marka USDT waa dooran kartaa markaan saxbiyaal lacagta waxaan rabaa in waxa weeye aan ku soo shubo Trust Wallet receive ka waxa weeye waa deposit oo kale weeye waladada laga ma yaqaan deposit iyo withdraw receive isan laga yaqaan hadda koon 10 ka sameey marka waxa qorta marka koonka aad lacagta inay kugu soo dhacdo marka qorta u jeedaa ka horeeya waa USDC Ethereum weeye kaaga xiga waa PNP Smart Chain way badan yihiin Solana Tron Ethereum Base marka waa inaad iska ilaalisaa adiga kan saxda adiga inaad doorataa hadii ma taqaanaa USDC kala aan doorto Ethereum halkaasna aan Solana ka soo baalkii ama ma taqaanaa PNP lacagta waliga helimay marka hadda waxaan dooranayaa kalamaad USDC PNP Smart Chain baa dooranaya si ku waan ka dhaa marka koonka dooratid meesha wata USDC hortayso maartid PNP Smart Chain ba ku qoran address kana kor waxa ku qoran receive waa deposit marka copy baa leeyahay address ku waan copyste network koonkana waa aqaana labadaba in iskaasa marka waxaan tagayaa in waxa weeye Binance baan tagayaa oo rabo saaxiib lacagta in aan waxa weeye aan ka soo saaro marka Binance ga tagtid meesha kan sa koona take out waxa withdraw kala weeye take out marka dho withdraw waan si dooranaysaa marka withdraw joogto koonka aan rabo inaan withdraw gareeyo baa dooranaya inaad Trust Wallet lacag ku shubo rabaa marka USDC waa sax xasuustaan USDC baan dooraya marka USDC doorto adiga USDT baad isticmaali kartaa anaga Europe baa joognaa waan laga xiray USDT laakiin isku mid weeye halka horta marka hore waxaan dhiganayaa address-ka waa ku paste kareynaya kaliya waa paste baa leedahay address-ka inaan marka copy-ga fiican qoritaanka uu ka dhumi karaa network marka iska hagaajinaya kalamaad weeye network muxuu ahaa sax xasuustaan PNP buu ahaa oo ka ugu sareeya PNP Smart Chain weeye hadii aan doorto ERC20 gaas lacagta helimayo kulli هلمية هذا كواس دنتوت مركب أنا نتوق إسكاه شوي نتوق هذا ويس حين هاي أدريس كنا واجري هذا مركب حبانا لعكتي وين أجريو طبعا أنا مركب وش حسوا مركب هذا السنة طبعا بانك سنة يعني سؤال كلا سنة تم withdraw ولا أي حاجة سنة تم USDC ويا withdraw بعد هاي ما بتاعه كل هاي إنه متقنع سبوتا كوسا حين يسبع لا هي واحد basically wuxuu cadeynaya mataqaana wajigayga adiga mish ma tagin waxa weeye iskuulta ugu xiran way ku xiran tahay paysaid aan soo saaray withdraw hada process weeye 15 kin halkaas baa hadda ka soo saaray waqti yar bay qaadanaysaa intaasna inaad soo kartaa hadda isla Binance hadii aan dib ugu laabto portfolio aan tago waa akoonka waa tusaale 10 ku bixinaysa la socotaanba hadda USDC ga hadii aan tago saa u jeedaanba processing buu ku jira Soomaartid 15 ka u dambeeyo waa processing markuu complete noo soo saaro waxa tagi doona mataqaana Trust Wallet
تنازل waxa lacagtaas in nooga soo baxdo 72 baa ku jiray marka waxaan rabaa inay ziyaado hadda haddii aan sii tago saaxib yaal trust wallet-kayga si aan u sii fiirinaba lacagta igu jirta sama taqaanaa aad xisaabta oo la socotaan hadda USDC waxa igu jirta saa u jeedaanba way soo dhacday smart 25 maad soo gashay 87 meesha awal $10 baa igu jiray waatana 15 hadda way soo dhacday سمعتان شن تمانك ويستوعب مرك قاب كاس هرتو لوجو سجورة أما قاب كاس هترز ولا على لوجو شبه سيمبل ويا برضك هذا صامر با صامر إنسا أوكي واحد فيلي مرك هذا وفهمتين قاب كلوجو شبه لعب ترست ولا برضك هذا أخو شيء با إنسا أوكي سيح بال هذا استبكلات بنابلا بني وحرمنا إن ترز ولد أن العكس صارنا أو باينسيجي أكنسو تصالح ويا مركو waxaan ku bilaabaa deposit baa ku bilaabaa maadaama arina Binance lacagta aan ka soo saaray inaan ku soo casharaba meesha ay qoranta waxa qoran saaxib yaal trade marka trade da saaxib yaal deposit baa leedahay koonka aragta marka inaad deposit soo doon hadda marka USDC baan rabaa inaan deposit karayo USDC kom baa dooranaysaa USDC kom marka dooratid network dooro kulay networkaas ugu fiican mid PNB smart chain ugu fiican hadii aad joogto Trust Wallet kaasan dooranaya mid kale xataa waa leeyahay kaas waa leeyahay mataqaan aad barnaamijka waa leeyahay laakiin PNB baa dooranaya marka PNB galiyo addresskaas waa koobisanaysaa addresska markaan koobisto waxaan ku laabanayaa saaxiibayaal Trust Wallet baan ku laabanayaa marka Trust Wallet ku laabto statement hadda ku jira socda sandi baa leeyahay lacagta waan ka dirayaa 25 kaas USDC gaan rabaa inaan ka saaro waana isla asayso marta PNB smart chain ama waxa leedahay USDC baa leedahay haddii aad USDT watin USDT baa leedahay wax aslan waxa way weheleysa marka hadda waxaan sameeyaa USDC PNB smart chain baa leeyahay wuxuu leeyahay marka koowaad address oo domain name kala ku paste karay address waan soo ku paste halkaas on baa dhiga halkaasna amount aan rabo inaad diro baan dhiga hadda 5 I think in ku jiraan 5 baa diriya tusaale kale next baa leeyahay marka next dhahdid wuxuu kula moobtaa inaad 15 saalasid USDC PEP 20 ah ha baa leeyahay because PEP 20 waa yahay statement dooda hadda ku jirta halkaas way isdhibi doontaa lacagtaasna halkaas bi kala doontaa processing waxa wada inta ayata marka processing ka blockchain ka kala dhacayo waa in aad sugi kartaa سأوجد مساحب يال USDC deposit Binance email و Binance soo diray tan halkaas oo ka tahay USDC ku tirtir full 15 USDC baash basically marka trust wallet-kayga aan ku laabto trust-ka dad weyn statement laba smart wada waa ka baxday hadaan USDC ku soo dhifto 15 USDC baa iga baxay hadda ma taqaanaa tago Binance-gayna waliba koonkan loo yaqaan portfolio tagtid aan ku dhifto koonkan loo yaqaan USDC وكاشين تومبا سوغاري وكم فايب بيسكلا ساحب يال وانترس هذا انها فاتين بأمانية واي ساحب يال دad badan baa lacagta marba ka khaldanta wali markay ka imaanayaan Trust Wallet markay USDC ama USDT doorto koon kasta network wala socdaa sida Binance lama kala saar Binance koonka dooranaysa network dooro kule laakiin Trust Wallet way la socdaan way isku dhigan yihiin marka hada il duuftid USDC do kooda ama USDT ama XLB isku dhufatid network wuu ku dhigan yahay marka XL badan baa ku soo baxay USDC badan ku soo baxay ama USDT badan ku soo baxay marka waa in network la socdo weey sida Binance sagyada network waa separate بكي حوجا سجوا more easy way لكن ولدنا مركل الجوجو ومو complicated way very complex way إنا فاتين بعمل واحد في الاستعباد إنا فاتين مقال كلاكسر هذه أكيد شيء أدبر سعدين سلامي وما سنتي